markii aad halkan ka hadlaysay berigii arrintan DP World la gelayay waxaad afkaaga ka tiri Britain ma noot in heshiiska uu dambeeya imika hadda Britain waxa ku qoraa 65% Ethiopia waxaan DP World 65% iyo 35 Somaliland imika raad dhexjeero kala يا أودي سينا في كبد الشارع إلا برلمان بأسحية هدي أيضا برلمان في الدين بسعودي يا أودي سينا وحكبد الشارع شير كاس برلمان بأسحية بيس كيس 65 سيدا صورة الشيء سكبرون وكو طلبات مالكشيكا واحد شيكت 2 مليون بحسي الشارع كلا قيبس 20 مليون هنا تدكا باش سميس باشي سمسميو يرك كلا وجرا 5 مليون اللي ليهين ادغو حشاره مخلابه وطلبات انت شي سبات شيكتي مخير الدراليه شركه لا كشي انت فورين من التربات انت برانك من التربات حبت كلمات كيني كلمه كيني سايمك جيتي دا صوره مكينيسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤاليسا xildhibaanku wuxuu yidhi markii halkan ugu keenteen heshiiskii amba principleskii amba term sheetskii adigu magaca doontaba u samee laba cid unbaa shirkadda wada lahayd Somaliland iyo DP World 65 iyo 35 yaa authority-geedin siina bedeshaan wata xildhibaan waxay ku qorayd heshiiskii ku qorayd in cid waliba ay xaq u leedahay inay saamigeeda cid kale ay siiso haddii cid kale loo gashay marka xaqa waxa na siiyay heshiiskan na siiyay aabaas gareyseen idinku haddii heshiiska oo dhan ka lagu soo celinayo taa haran uga afeeftay hadduu yahay dastuuriya dan dastuur ka wariman maayo wuxuu dastuurku yiraahdo inuu yeelinayo inagu qodobka ku saabsan shirkaddan Somaliland Investment Company iyo cidda saamiyada ku leeyahay waxa la gashaday san harubaan u sharaxay shirkadda waxa iska leh Somaliland bas iska leh shareska authorizer-ki waxa weeye kuwa ma ahayn hadda la maalgeliyay ma waa in theory shareska waxay noqon karaan 5 milyan waa in theory laakiin shares jira maaha wali oo la ciidan lacag gashatay maaha cidina ma yeelan karto samsamna ma yeelan karto anuna ma yeelan karo sheerna kumalihi waxna ma gashanin mana gashan karo sharcigu saasoo waxa iska leh dawladda ayaa iska leh haddii dawladdu sheerkeeda oo dhan wada 5 milyan bixinayso iyo haddii wax kala bixinayso taas dawladda iska leh waxaana inooga mas'uula wasaaradda maaliyadda anu runtii mas'uul kama yihi arrinka ku saabsan xilwa hadda xigay وضع أريك كوساب سن محل هذا هشيسيدا إنه قال لي يكنيستو ده هل كان أنا وحن آمن سنة هاي نظام كدولي constitution كبدستور كشرع جنوي لا شرع وحي نفرعيه وإنه خصبنا هاي إنه يلا هدين وزيرنا هاي هدين حلوان هاي هدين مدحوين هاي مركا كاسن كجبحيه هذا ما سنتي waxay isla galeen maxkamad sida waddanka Djibouti oo kale haddii aynu isqabanno waa xagee maxkamadda inooga dhaqaysaa xagee ayay ku taalaa maxay se opposition noqonayaa baasaas koowaad talabaad waxa la sheegay inaynu 35 keenay inaynu 5 iibinay baa sheegteen 14 DP World iibisay shanta ay iibisay dawladda Somaliland lacagteedii meeday goormaanu arkaynaa waxaad moodaa dunidii proxy war-kii inuu soo cusboonaaday u eegaatay sidii dagaalkii qaboobaa oo kale maxaa ka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland uga meel yaala marxaladaha imika dunidii ku soo kordhay Syrian ama wadamada ha ahaato China iyo galbeedka ama ahaato wadamada Carabta saynu uga faa'iideysano maxaa wasaaradda kharajyahan inooga meel yaala siyaasadda
baabayga dhamsani oo maasud dadka jira joogta qodobada waxa kamid ah hadii la heshiin waayo amba waxa la isku qabto xagee la tagaya inaga heshiisina uu ku qoran yahay waxaynu soo tagaynaa maxkamadda maxay raadada kala saarta dadka heshiisada wada gal khaasan xagga ganacsiga ee ku taala Ingiriiska marka sharciga Ingiriiska ayana kala saaray Djibouti iyo Dubai laftigoodu saas oo kale ay ahayd waxay iska shaqeeyeen maxay maxkamadda sharciga Ingiriiska aniga ku saabsan saamigeena shanta meel lacag xagee qabanaysa sidii maanta hore aan ku sharaxay 35 keena aanu leenahay saamigeena 10 wax way nagu deyn weeye 10 kii nagu deynta ayaa shantaasi naga goynaysa shan ka mid ah marka inagu lacagta deynta lagu hanbay ayuun bay bixinaysaa aniga ku saabsan code work ku soo biiray saaxadda caalamka maanta oo muddo dib loogu noqday 70-nadii iyo 60-nadii inagu waxaanu jecel u rajaynaynaa in gobolkeenu ahaado mid inoo nabdoon innaka nabad bay dantii noogu jirtaa innaka iyo jaarkeena ay dantii ugu jirtaa hase yeeshee dabcan mararka qaarkood waxa khasabku waa inaad mowqif aad qaadato ayaa kuu khasaba inagu berdhowto mowqif baynu qaadanay inaynu xulafo inaynu taageero ayaynu isla qaadanay marka inagu hal qolaasaynu ku jireen xulafaasaynu ku jiraa laakiin inagu kuwaynu la jiriyey kuwaynu mataqaanaa ayagu ishayaanbaba waxaynu rajaynaynaa wadamada mandaqada ku nooli amba jasiirada carab ha ahaadaan amba geeska afrika ha ahaadaan inay nabad ku wada noolaadaan wixii ka dhaxeynaya nabad ay ku dhameystaan saasaynu ka jecelahay maasinta waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan faarax maxamed cabdi inay diidan tahay jiritaankeenna iyo go'aansutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu kala ognahay iyagoo ayna diidan ciidankeenu xadka ku sugan yahay inuu diyaar yahay inuu dhigiisa u daadiyo ilaalinta jamhuuriyadda Soomaaliland haynu ognahay in aad iyo aad uga qayliyeen heshiiskan in aad iyo aad uga qayliyeen heshiiskan ayaynu ognahay kana ashkateeyeen dacwad ka dhan ah jaamacadda carabta ay u gudbiyeen miyaanay taasi muujinaynin in heshiiskani uu leeyahay faa'iido weyn qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland una horseedi karo ictiraaf isla markaa su'aashayda labaad aan ku kabayaa waxay tahay miyaad arrinka iibin kari weydeen dawlad ahaan waxa weeyaan way ka caddahay cadceeday ka caddahay heshiiskani dalkan inuu faa'iido u leeyahay su'aalka Ibrahim xildhibaanada hadalkayga ii daaya Ibrahim su'aalka dhigaa jooji hadalka waxaad ingoliin shacabkani soo doortay ragna xabad buu la taagayay halka idina erey baa ku taageeri laayay xildhibaan Ibrahim ay daay hadalkayga marka hadalka adigu Allah adiga wad doota wad su'aasha labaad waxa weeye xildhibaanka hadalka waa loo daayay Soomaaliland waxay u baahan tahay waa dal yar oo curdina asalkeeda wana ibn aadamku wuxuu ama faa'iido ama khasaarooba marka uu dhaqdhaqaaqo haddaan uu dhaqdhaqaaqinba waa halka uu dhaqaaqo ba yiraahdo waa tabaysaa ma laag baad ka dhacaysaa dimana faa'iido mana khasaaroobo dawladda ayaa xil ka saaran yahay oo loo doortay inay qarankan hore u mariso waxay u baahan tahay Soomaaliland shirkado maalgashi xildhibaan Ibrahim adeerayada biyasho aamusni walba mikrofoonkan haystay haloo daayay xildhibaanka hadda aamusi wadana anagoo wadaya aamus way xal Ibrahim su'aalka dhig Soomaaliland waxay u baahan tahay si ay noo ognahay shirkado maalgashi oo badan si ay u gaadho horumar ma haystaan saxaafad wasiir shirkado maalgashi oo kale ma haystaan mise waxa ku dhaga bartowdeen hadalka mucaaradka ee oranaya koobka hadii la dhigona waa in la qaadaaba yahay hadii la qaadano in la dhigaaba yahay waa xildhibaan Cabdiraxmaan bes waa ka dhamaatay deeyimi caalamiga
inuu korba u qaadayo qadiyadeen iyo magaciinaba marka qaar waxa mala xayis bilaa shaab inoo sameeynaya runtii inuu debate ku levelkan soo gaaro oo meel walba laga sheekeeyo oo journal walba lagu qoro marka insha Allah waxaan rajaynayaa soo dhaweeyo ictiraafkeena ariga ku saabsan shirkadaha kale imika badii waxay nala joogay shirkado dhowr ah nala joogay imika oo ajnabiga oo doonaya waddanka inay maal gashadaan maantadan qado ayaan la leeyahay shirkad weyn oo insha Allah iyada laftigeedu daneynaysa inay waddanka inay maal gashato way nagu badan yihiin oo way noo yimaadaan waxaynu u baahan inaynu abuuro jawigii shirkadaha soo jiidanayay inaynu sameeyno weelkii mataqaanaa waddanka ay ku iman lahaayeen inaynu soo dhaweynaba runtii aynu u baahannahay waayo waddanka wuxuu u baahan yahay maalgashi dadkeenu waa bilaa camal waxaynu u baahan inaynu camal u abuuro sidii keenna camalku ugu abuuri karaa waxa weeye waa maalgashi weeye marka insha Allah waa ka shaqeynaynaa si fiican inuu inoogu socdo adigoo fadhiya halkaa miiska adinka fadhido markii aanu heshiiskan aad nuxurkiisa noo keentay waxa aad noo sheegtay in heshiiskani uu yahay laba qaybood oo ah DP World iyo Somaliland muddo 5 sano aan waxba laga bedelayn oo aan qolada sheerkeeda waxba laga bedelayn muddo 5 sano hadalku uu tuuban yahay oo cad yahay haddii wax laga bedelayo 5 sano ka bacay in qolada kale xaq u leedahay inay sheerka iibinayso qolada kale ka iibiso hadday ku diido oo tiraahdo uma baahnin markaas baa laga iibinayaa cidii soo waddanka dawladda Somaliland cidii ay ogolaato annagu taasaan waasix qoraal la leh duubanna heshiiskana waa 3 geesood way kala duwan yihiin si marka annaguna aanu u fahanno maadaama 3 geesood uu noqday miyaan sharcigu waxaan sharci miyaan ahayn inaad golaha hor keentaan oo wax ka bedelka maadaama 3 geesood noqday markii hore 2 geesood uu ahaa sheerkina isbedelay muddo 5 sano aan waxba inaan laga bedelin ay ku qoray miyaan ahayn inaad u arag adigu maadaama tii hore hogaaminayso kana hogaaminayso in wax ka bedelka aad golaha hor keentaan talabaad waxa weeye shirkadan aad tiri Somaliland baa leh shirkad kasta ama hay'ad kasta oo dawladdu leedahay sharci bay ku dhisantay maadaama hadalkeedina batay adiguna aad ku adkaysanayso in dawladdu leedahay mar haddii dawladdu leedahay sharcigeedii ma loo keenaysaan golaha ma keenaysaan golayaasha ay ka dhamaatay waasa lock in period 5 sanadood xildhibaan sidii markii hore baan sharaxay heshiiska hore waxa ku qoraa marka ay Ethiopia ay soo gasho ayuu bilaamaya lock in period 5 sanadood ku jirtay waxa ku qoraa ES Ethiopian shirkadna ES baa ku qoran tax in akhriin kale mooyaan marka lock in period ku hadii noo bilaamaya laakiin markii hore shardi baa ku xidhnaa shardiga ugu buuxsamay marka hadii noo bilaamaya فارح معاك والله لبا إثيوبيا مرنا والله كم سوق هذه مركي أنا وش سكان لبا ذا قيمهم بين كل ذلك ما أنت ركز يمين ما وضع آخرين ده شيء سكورنا قطب مو هين وده هم معين كوي لا وسعد وزير وزير اللي دوكمنت كمان آخرين وقرين حلوان دوكمنت وقرين ساسبه يعني هاي هدي وحلقة بدري هدي وحلقة بدري قول هاي لكانوا هاي قال الحلي ما وحي يقولها اللي كنا هذا الشرع قال الله راعي أنا تعرن واقفتي الشرع ورانا أيه هاي من راعينا
laakiin soo gelidda Ethiopia soo gashay wuxuu ku salaysan yahay qoraalkii hore ku salaysan yahay hadda dib u akhridan qoraalkii ku salaysan yahay cusub ma waan ka jawaabay labadii jawaab aad maasan su-aasha la weyqad memo ah oo ahayd in loo ogolaado in wada hadal lagula galo DP World on the basis of that document waxaana lagu balansaraa marka uu sharci noqdo ama heshiis noqdo in golaha lagu soo celiyo si uu sharci noqdo oo taaka ay bilaaqaan kuna bargayn gareeyaan kale oo ilaa imika waxaan leeyahay sharci ma aha weli talabaad waxay ahayd halkaa ka bilaaba oo taa ku bargayn gareeya marka miyaa bargayn gareynayseen mise dictation buu ahaa waa la yeedhinayay wax waad mahadsantahay Dr. Musa marxim haddaan ku fahmeeyeen ii sheegeen xildhibaan miyaad ku celiyeen waa ku celinaya Professor waxay ahayd memorandum aad noo keenteen atraaheen inaan kaa ku hawlgallo oon hadalka ku furano dabeedna wixii heshiisada noqdo aan golaha ku soo celino noo ogolaada sidaa awgeed ayaan u leeyahay malaha inaan isticmaalno dhinaco sharcigii waa qalad weli soo noqon oo de goluhu waa ku karaynay midda labaad waxaa ku jirtay in halkaa laga bilaabo hadalka ka wada bilowdana wada hadalka arag ku baargayn garaysaan marka sida rag badan ka dhawaajiray horaad u sheegtay inuu yahay xeerkani memorandum of understanding qabiyo uu yahay marka la ansixiyana aad hor keeni doonto golaha waa lagaa rabaa golihii sharciga ku weydiinaya adigu guddigaad u ahayd xukuumaddii hore iyo xukuumaddanba labadaba heshiiska DP World iyo Somaliland sidaa daraaddeed waayo ciddaad isaga riixaysaa cidda aad isaga riixaysaa waayo inay keento xeerkaasi ama heshiiskaasi golaha inay hor keento cidda aad isaga riixaysaa waayo waa su'aal weyn su'aasha labaad golahana waa golihii xeer dejinta isagaa kaa dalbaday cidda aad amarka ka sugayso inaad heshiiskii golaha horgeysaa waayo iyaduna waa su'aal labaad su'aasha saddexaad aan doonaya inaan ku weydiino waxa weeye iyaduna u baahanay in la kala gareeyo la caddeeyo shirkadda maalgashiga ah ee Somaliland ee aad adigu matalayso iyo safiirka Somaliland u fadhiyo imaaraadku heshiiskii noocaas ah jileynaysa inay qarankan lagu dhici karo oo ay u soo horseedi karto lacag malaayiin dollar ah in lagula baxo oo heshiisyo lagula galo 200 sannadood ee soo socda jiilka iman doona ku noqon doona qaan iyo deyn yaa ku sharciyeeyay inaad shirkadda heshiiska la gasho kana samaysato lagu soo tuuray ama lagu soo gaday oo waxa liya faa'iido ah oo maxaan ahay ilaa maantada maxaan ahay laga helay ama laga hayaa aanay jirin dhibaato dambe oo aynu mar dambe iyadii beesku dhibaato dambe oo aynu mar dambe ka sheekayn doono carruurteenu ka sheekayn doono inaynu ka sheekayn doono ma sidaa ma noola aragay su-aashu waa taas waa qodob talabaad waxa weeye maalgashi meys boqolkiiba 80 maxaa waxaan leeyahay 80 milyan ee sagaal lagu qiimeeyay 19% kan maxaa la siiyay Ethiopia 80 milyan ma Somaliland baa leh mise waxa leh maxaa la DP World halkay gelayaan qodobka kale waxa weeye ma wali maalgashiga haray waa saddex qaybood weeye laba maalgashi waxa weeye caashi maxaan soo firiida tigeeda ayay ahayd mise maxaan ahay in DP World ay maxaan ahay dii ka maalin markii shares loo bedelo haddii shares loo bedelo oo maxaan ahay dekadu ay shaqeyso dekada shares laga galo Ethiopia ma 80 milyan bay yeelanaysaa mise shayirka dambe
محوها لبو قيمين دولهم محان هاي دكدة أيام محان هاي يرى ليس بس عاشي وكاحد ما القشوا دي بي ويل ما فتنة يدباتي نولتهم وسام النولا عركتان يسوي احتر بين نولتهم أنا قرنتي ديكم أنا واتك كسوة هجنين عد دباتي يفتنة نولا يمان عيسى أنا قرنتي واحد نوارنا إن تهاي شركة إنه بحنا هاي وايد كده إنه وحي وبحنت مال قش بريجي هوري بداعد وحي هانشته بداعد لو كانوا شوانية سحارة كأول لقى جوري كونتينرين كبداعد دورنا لو كنا كده إنه ما حبيسنا وما كونتينر تيرمينال ما حنو باني كونتينر تيرمينال كريم سيد الوقت دي لها وحي وبحنت العقب وبحنت فربضنا وين إنه قاين هايسنين marka waxay noqotay cid kula galgalano maadaama ay naxta soo deesan kareen inagu marka shirkadan ayaa shirkado badan baa ayaa runtii inoo yimi ilaa 6 shirkadood bay ahaayeen waynu kala saaray shirkadana waxay noqotay shirkadii ugu mataqaan ofarka wanaagsaneed ayay ahayd amba ugu balanta wanaagsaneed sidaas baynu ku galay wax badan waynu ka rajaynaynaa laarinta maxaan raday dekadu insha Allah sanadkan ay bilaami doontaa waa la dhameeyay design phase ka horeeya designka waa la dhameeyay dhagaxuna insha Allah waxa la dhigi doonaa oo bilaami doontaa sanadkan marka waxaan rajaynaynaa khayr badan runtii noo keento dekada noo balaadhiso oo badaacad badan ay noo marto in rajaynaa tasdeedanka milyan waxa lagu maal gelinayaa DB Wells ka qaadan mayso jeebkeeda gelin mayso waxaanu way xisaabsan yihiin waa lacag looga baahan yahay balaadhinta dekada oo ah 3 wajiga hore oo ah maamul toosin iyo qalabayn wajiga labaad oo ah 400 mitir oo maxaa dekada iyo wajiga u dambeeya saddexaad oo ah waji oo ah 400 mitir isaguna ah marka lacagtani waxay gelaysaa dhismaha dekada ay gelaysaa insha Allah xagga saamigu isbedeli maayo saas ma loo kala yeelanayaa koob iyo konton 30 iyo 19 haddii ay maxay shirkadu haday macaashto iyo hadaan macaashimo si wax saameyn ama ku yeelanayo saamiga sida loo kala leeyahay aad baad maasantay محمد جامع دبلي وزير النبي هدو كتابك إلهي كبخو ماها حديث marka arrimahan halkan aad ku soo qaadeen waxa uu beeysaa distoorka agreementka intaad ka hadlaysid waa muwaadiic ku jirta agreementkii sida distoorku uu hornay qodobka 53 maxaa loo keeni waayo golaha isagaana uu saldhig si waxana ka hadlaysaan oo dhan in laga helo imika waxana sheegaysaan waa hadal laakiin distoorku wuxuu leeyahay agreementka waa in la keenaa oo goluhu u codeeyaa marka labada dawladood ay heshiiyaan saasheedu marka waxa weeyaan meeday ittifaaqiyadii agreementkii waxana ka hadlaysaa ay ku jireen waa su'aal taas waa mid ta kale qodobada aad halkan ka sheegtay waxa weeyaan 128 qodobka distoorka waxaan wixii ka soo horjeeda waa baadil waxa halkan ku qoran in aynu la heshiinay inaan dekada kale la samayn distoorkeeduna wuxuu leeyahay waa free enterprise suuq xor weeyaan waa nin shaqo loo xulayaa ma jiro sababta loogu xidhay ee distoorkii qodobkiisu uu jiro ee qodobka loo jabiyayna waan ku weydiinayaa bas ma ka dhamaatay ya labadii su'aal waa dhamaadeen cilmi baan ku hadlaynaa ku doodiyey labadii waa sheegay qable oranayno koobiya laba baan ka hadlayaa hadday laba tahay labadii su'aalood waa haddaan ka jawaabeen labadaas sannadood lacagtii ka soo baxday dekada maxaa inagaga soo noqday innaga warka waxaanu ku haynaa 2 milyan iyo bar baa ka soo baxa dekada bishii
$15 مليون بيقالتي دي بي ويل maxay keentay ilaa iminka oo lacagta labada sano bishan March ku eegyahay marka faa'iidadii wadanka lacagtii soo galay 900 baynu ka helnaa iyana 2 milyan bay ka helaan iyo barbishi faraqa maxaynu dhaafsiisanay dawaatan waqtiga si aweed aan soo yareeyo anigu waa intaas aan ku daynayaa laakiin waxaan ku adkaysanayaa in la keeno qodobada uu ka hadlayo wasiirku ka hadlay iyadoo ku taal sharciga waa in la keenaa dibadda golaha qodayo wassalaamu calaykum inagu dastuurkayna xukuuma ka hor iman mayno haddii la keenayo haddii aan la keenin wuxuu sharcigu yiraahdo ayuunbaynu ku raacay ka hor iman mayno heshiisyadan markaanu soo gallay annagu waxay ku salaysan yihiin heshiiskii qodobadiisa doorka halkan la keenay ee laga baasgareeyay ayuu ku salaysan yahay wuxuu kaloo ku salaysan yahay in aynu madax bannaanahay ciddii aynu doonay in heshiis aynu la geli karro oo dastuurka oo qodobkiisa 9aad wuxuu siinayaa madaxweynaha inuu dawlad iyo shirkadba ciddii isagu markaa u arko dan inuu heshiis la geli karo marka wuxuu ku salaysan yahay dastuurkeena laakiin haddii dastuurku uu naga dalbaayo halkan marka la in la keeno disaas ma noqonaysa waa arrin sharci weey arrin heshiis arrinka ku saabsan heshiisku wuxuu inoo diidayaa dekado kale inoo diidi maayo dekado kalena waynu samaysan karaa waxa ku qoran container port baa ku qoran container port kale ayaa ku qoran ee dekado dhan maaha waa mid gaar ah marka maadaama ay dee lacag badan ay gashanayso shirkaddu waxay u baahan tahay ximaayad bay u baahan tahay inay maalgashigeeda ilaashto laakiin haddaynu u baahno imka deked kale soo baxday inaynu u baahno matalan bulk terminal oo kale waynu samaysteen cidina inoo diidi mayso haddaynu samayn weydaan cid kale inoo samaynaysa dekedaheenoo dhanna waynu horumarsan karraa waynu samaysan karraa waa container terminal kaas waa container terminal ka weyn arrinka maxaa idhahdaa maxaa ka soo baxay iyo seebaa maxaa idhahdaa inuu qaybsanay iyo maxaa inaka naga soo galay horta imika waa sanad un baa laga joogaa march markay dhammaato sanad baa dhammaanaya sharcigu wuxuu odhanaya sanadkaas markuu dhammaado waa in xisaab xidh la keeno markaasay caddaan doonto auditorna shirkadda way leedahay inana xaq baynu leedahay in auditor kale oo madaxa bannaan inuu qabsano wixii xisaabe ka soo baxa baynu markaasaynu diyaarki doonaa haddii waxaynaanu helay haddii inaan helin doon waad mahadsantay kadaas sida aynu ka warqabno ama procedure-ka shirkadaha loo sharciyeeyaa uu yahay shirkad waxa la ciddii diiwaan gashata marka la diiwaan gelinayo shirkadaana sida ka muuqata magacyo shakhsiyaadaba ku qoran oo adigu aad ka mid tahay oo sheerka iyo nidaamkaba leh maxaad ummadda iyo golahaba ku qancinaysaa shirkadaasi inay tahay mid reer Somaliland leeyihiin maadaama nidaamka shuruucda shirkadaha loo diiwaan geliyaa aanay dawladdu ku qorayn ee shakhsiyaad ku qoran yihiin maxaad ummadda ku qancinaysaa iyo golahaba in shirkadaasi ay leedahay shirkad reer Somaliland talabaad isla su'aashaasa waxaad sheegtay in wasaaradda maaliyadda gudoomiye ka tahay inagoo leh wasaarad maalgashi sidaad adigu sheegtay maadaama wasaaradda maalgashigu joogtay maxaa iyana wasaaradda maaliyadda u geeyay taas waa taa su'aashayda kale waxa weeye constitution-ka Somaliland ee aynu leenahay wuxuu qorayaa midnimada iyo qarannimada Somaliland waa muqaddas kan kale ee dawladda Soomaaliya aynu heshiiska la galay marar badan la shirnay muddo 9 jeerna wuxuu leeyahay midnimada Soomaaliya waa muqaddas haddii aynu u dhaaranay oo qarankeena iyo madaxdeena ay u dhaarteen dastuurkeena in sida uu yahay loo qaato ay lama taabtaan tahay Soomaaliyana wax kasto aynu la galno mar walba ta ka baxdaa iyada ay tahay maxayna daalinayade waabaynu u dhaaranay qarankeena Soomaaliya la hadlo iyana waxay u dhaarteen bay leeyihiin
inay midnimadu muqastay maynaan ku daalayno maxaynu dhinac kale uga wareegi weyn heshiis kastoo aad la gashaana iyagaa ka baxa sida marar badan dhacday maxaa inagu daalinayaan labadaas su'aalood baan isku weydiin lahaa yabeeri oo caama shirkadda markaad diiwaan gelinayso wayna magac yeelato wayna adres yeelato wayna board yeelato wayna shares yeelato wayna xoghayn yeelato wayna auditor yeelato waa shuruudaha ay leedahay waa kala jaad boardka iyo lahaanshaha saamiga dadka waa kala jaad dadka boardka leeyahay maaha necessary inay saamiga inay yeeshaan shaqo isku ma laha shirkaddan sharcigeedu wuxuu odhanayaa boardka waa run anigaa ku qoran iyo maxaan idhahday safiirkeena imaaraadka ayaa ku qoran xagga boardka oo shuruudda caynkaas in magacya la keeno laakiin saamigeeda iyo sheeriskeeda waxa iska leh Somaliland ba iska leh waxaana uga mas'uul dawladda Somaliland ba iska leh dawladda Somaliland iska leh waxaana uga shirkad walba sharciga leh waxay leedahay articles of association and memorandum bay leedahay sida shirkadaha kalena way leedahay plan way leedahay iyaduna way leedahay taadad Google garayso oo laga yaabaa inaad ka bahesho taas waxay wada shirkadda aanu ku malihiin waxba ku malihiin shirkadda Somaliland ba iska leh in magacaygu ku yaala boardkiinu kaagu ku yaala waa isku mid midkeena shaqo kale kuma leh shuruudun baynu buuxinay taas waa taas haddii aynu leenahay wasaaradda maalgashiga markaa maxaa u geeyey wasaaradda finance-ka wasaaradda finance-ka wuxuu geeyey ka hadlaynaa xisaabaad baynu ka hadlaynaa wixii dee xisaabaad iyada inoo qaabilsan istiidina maayaan wasaaradda maalgashiga iyo shirkaduna shaqadoodu way iskaabaysaa way isu baahan yihiin way iskaabayaan labadu arrinka ku saabsan wada hadalka iyo haddii inana madax banaanideenu muqaddas inoo tahay iyaguna ay leeyihiin Soomaali weyn baa muqaddasa maxaynu kala hadlaynaa arrinka haddii wax ka yara taabto doorta laba kastoo wax isku qabataaba caqligu wuxuu ku siinayaa marka ugu horeysa doorta marka hore in la wada hadlo intaan la isku dhicin haddii la wada hadli waayo markaa waa la isku dhacaya waxaynu doonayno haddaynu hadal ku heli karro kaasaa ka fudud inaynu dagaalaynu ka doono laakiin de haddii aynu aragno inaan waxba ka soo naasacadayn dhinaca kalena inaanu raalliba ka ahayn amba inaanay kaba goonayn waxay nagu kalifayaan ma jiraan marka wixii kale dan moodno ayaynu qabanaa insha Allah wassalaamu calaykum waxaan doctor kala diidooda DBWorld marka wuxuu ku celinayaa saacatul wasiir in loo baahan yahay in the real agreement si between the lines loo arko oo lagu qanco inaan helo waraaq yar oo Soomaali lagu turjumayo halkan la keenay wanu isla wada ogna waxay ahayd we have to get that taas waa taa oo secondary baan kula ah okay shirkaddan maalgashiga wasiirku wuxuu yiri dadku way fahmi waayeen lama fahmi waayeen I don't know in la xusuusin kan mooyaane xilmaan su'aashaydii labaad su'aal weydii markii London la isugu tagay mar baa la sameeyay shirkad maalgashi oo London laga sameeyay ma garanayo inuu bariga wasiirku ku jiray kale wasiir muu ahayn deedna shirkadda hore inta la sameeyay maalgashiga baa lagu dhacay Soomaaliland lama arag meel ku dambeysay xisaabirkeedina meel ku dambeeyay lama arag this is why looga shakisan yahay imika shirkaddan oo kale ee maalgashiga hore loo sameeyay waxa loo baahay maxay kaga duwantay tii horena lagu dhacay su'aal ka dhigay doctor haddii dastuurkeen iyo sharcigeenu isaa sheegayaan anu ma odhanayo yaan la keenin hal la keeno waa arrin u yaallaa dee idinka idin yaallay oo looyarada iyo sharcigeedin waxba kama qabaano maxay ku kala duwan yihiin shirkaddan iyo tii dadka lagu dhacay anu runtii shirkadda dadka lagu dhacay war kama hayo laakiin tan mid dad lagu dhacayo maaha waa shirkadii dawladdu iyadu ay leedahay wax kalena maba qabatee wuxuun bay fududaysaa oo dadka doonaya waddanka inay maal gashadaan mid dadkeena lagu dhacayo maaha waa dunida dad shirkado kale aan kusoo jiidanayno si ay waddanka inoogu yimaadaan sidaa darteed aan sheegayna haddii arrinkaasi waxaad mooddaa runtii inuu fahamkiisu qallocday baad mooddaa bilowgii oo la xumeeyey anigu waxaan qabaa inay faa'iido inoogu jirto ayaan aad iyo aad u qabaa oo ugu qanacsanahay laakiin haddii dee la madmadoobeeyo
dubba loo yiri karaa wax inagu aynu ku weyna mooyaane wax inooga kordhayana ma jiraan marka kaas wuxuu yaalaa runtii dee madaxweynuhu yaalaa in dib loo eego laakiin waa wax faa'iido inoo leh oo runtii xarka badan oo inagu xidhan maadaama aynaan aqoonsi buuraa lahayn inaga furfuri lahayn asaas baan aaminsan runtii hada maasantii waxaan kusoo dhaweynayaa xildhibaan axmed ducaale waa sheeriskaad sheegtay heshiiska memorandumka hore aynu ansixinayna wuxuu ahaa heshiis marka hore laba dhinaca buu ahaa waxaa kaloo ku tiilay 5 sannadood inaan wax sheera la bixin karin halkaa waxaan doonayaa su-aasheedu waxay tahay ta kale markii heshiiska Ethiopia soo gashay dadka confuse badan baa ku dhacay waxa la sheer gareeyay in si fiican loogu sharxo maxaa la sheer gareeyay ma dekadii aynu lahayn baa la sheer gareeyay ma macaash baa la sheer gareeyay halkaa dadku waxay baa in sharx laga siiyo bal waxa saddexda dhinac ay sheer gareeyeen anigu ma diidanis in saddexda dhinac wax sheer gareeyaan Ethiopia muhiimadeeda waan arkaa laakiin dadka waa in loo sharaxaa saddexda dhinac maxay sheer gareeyeen oo warwarkoodu yahay waa ma dekadii barbaraa la qaatay taas waa su-aasheeda koowaad su-aasha labaad waxa weeye warka yaalla waxa weeye lacagta soo baxda ee ay shirkadda DP World qaado marka hore Somaliland shilin bay ku qabataa marka dambena suuqyaday gashaayo dollar bay ururisaa fara badan dollarkana waxay u dirtaa wadankeeda u dirtaa akoonadeeda ku shubataa taasuna dhibaatooyinka fuuqbaxa dollarka kordhibay ka mid tahay taana su'aal baan ka weydiin lahaa labadaas su'aalood qura iyo shardiga inaan la bixinin wuxuu oranayaa oo waxa jira meesha concession waa heshiis iyo shareholder agreement waa ka shares kasta loo wada yeelanayo marka qodob baa jiray oranaya markuu heshiisku dhamaado Ethiopia laalga shardigaas ku xidhnaa 5 sanadood laakiin waa markuu heshiisku dhamaado Ethiopia heshiiska lala galo saas baa raacsanay ما وارن heshiiska hore laba geesood buu ahaa laakiin shardiga maxaan ilaahay 5 sanadood hadaad akhrido shardiga 5 sanadood ma aykaade shardiga laba dhinac ahaado laakiin shardiga 5 sanadood waxa daba joogay ma waa sax weeyaan ما حلم ما تكون نقول كرتاو حلم ما تكون نقول كرتاو وحكو قرن حلم عبد الله heshiisku dhamaado Ethiopia ay soo gashay saasa ku qorayd marka waa iminka saddex geesood ku dhamaaday xildhibaanada marka joojiya su'aasha ka jawaabay su'aalihiina weydiisay marka haddu bilaamaya xayiraadu iminka bilaamaysa laakiin marka hore shardigaas ku jiray كاسين هدي أنا قد بو سؤال شلبات حلبان كي ودي هاي محل قيب سنة ومحي وحلا وضيالنا وحلا قيب سنة وحوي وشارس كشركة ده DP World بربراء يلا يالنا تكده دينا كيسكله شركة دون تكده مالها دوام مع مشاه marka waxa weey waa shirkadda dekada maamusha saamigeeda ayaa si loo kala leeyahay kaas la qaybsanaya cid walba waxay gashatay ku leedahay aringa ku saabsan xagga maamulka lacagta shilinka Soomaaliland iyo dollarka waxay ku qaadaa shilin bay ku qaadaa marka dambena way bedelataa waa run shilin bay ku qabataa kharashka inta badanna shilin bay ku bixisaa oo shaqaalaheeda shilin bay ku siisaa طبعا ده شركه ضايده لفتيده شقاله leedahay xagga ka yimaada dollar qaata طبعا ده dollar ku bedelato waa de sax weey marka hore heshiiskeenu saas ah hadii macaashkeedana dollar bay ku bedelan kartaa wixii kharashaad ay leedahay de way u baahan tahay dollar ay ku bixisana de dollar bay ku bixin kartaa taas ma maanacayo oo maasanti waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan Cabdiqaadir Askar wasiirada iyo goluhu waa salaaman yahay su'aalahayga haddaan toos u galo
waxaa la bixiyey shares sida hadda aad sharaxaysay ah oo DP World ay leedahay 51 Ethiopiana ay leedahay 19 Somaliland ay leedahay 30 memorandum of understanding kii hore waxaa ku jiray saami ahaa inay Somaliland leedahay 35 diana khaldanayn DP World leedahay 60 hadda waxa soo baxay in Somaliland laga jaray 5 oo ay ku soo hadhay 30 DP World laga jaray 14 oo ay ku soo hadhay 51 waxay ahayd Somaliland shirkeedaas DP World baa shirkeeda iibin kareysay oo cid kale ka iibin kareysay sidee ku dhacday Somaliland shirkeedii qayb ka mid ah yana iibiso taas waa su'aal qiime intee leeg baysa ku iibisay oo ah shanta ay dawladda Somaliland iibisay ama dekada berbera Port Authority taas waa su'aal su'aashayda labaad waxa weeyaan wax timeline ma jira oo hawlaha faraha badan ee wasiir aad heshiisyadooda hore u keentay qaarkoodna ku hadhsan yihiin ee ku dhex wareeg ee ah DP World iyo hawsheeda saldhigii militariga iyo hawshiisa maxaa la dhahaa free zone-ka iyo hawshiisa wax timeline oo aad haysaa ma jirtaa hadda oo aad noo sheegi karto oo ku saabsan sanadkan iyo sanadka dambe iyo sanadka sii dambeeya wax la qabanayo mid walba su'aasha ugu dambaysa waa saddex weeye waa ka dhamaaday waa dhamaaday ma santahay su'aasha hore ee ah maxay ku dhacday in Somaliland shirkeeda ay iibiso heshiisku wuxuu oranayaa markii hore in laba daraf aynu ahayn inkastoo mar walba fahamkuna ahaa inay soo gali doonto Ethiopia heshiiska aynu la galnay DP World wuxuu ahaa inay dekedeen horumarin doonaan lacag 440 milyan ay ku horumarin doonaan 400 mitir ay ku dari doonaan dekeda qalabna ay keeni doonaan iyaga oo aan wali maalgelintii bilaaban inay revenue dekeda qabtaan oo ay maamulaan taa macnaheedu ma ahayn revenue dekedeena ka soo baxayay bay dib inoogu maalgelinayaan وسؤاشيدا كوان سؤاشيدا لبعض واحد ويه بدأ كسر دقي شريدة كده بربرة ولا يقاني استاتس كده بربر ألعاب كسر دقي كده بربرة أنت ثانية هاي سنة كي أنت كونتينري مادة مدة سنة ذي مكملة كيس يلا بلعب دونا إن شاء الله فرتي بقول متير وسوري وابلغي أبا مادام أمريكا ولا يشوفين جيبوتي لكن مكاي يجي جيبوتي سكوحهم معدن وجيبوتي كتجين إن هالكي أفرت بقولها هذا كباب بديان بابا هو مركريا دور بقوله كله وجوب الدرواب الصورة قلب بابا مركا انتاز حرشين إنه الخصاص نقوله حق لعقتني أو أي قاتينه ويدبنا تاسمينه مالجنيه لعقت كده نجس صوج شاهدي أي كفلان تعين إنه مالجش النوين تاسو متير أنه قدره أفر بقول يستيد بقول تهاري نوصة ما يسان لحي لعدك الصبح بتكفلان ما يهين وحنوب عن هاي مالقش حوجة إن الشركة ده يكون سميسو سيدي شركة الله بالعارين لها طبعا وحي كصبحة وحي ده يحقوا لين بيك قاعدنا يان إن أنا وحي نحقوا لين هاي إنه كقاعدنا
saadirtaan sheegay March markay dhamaato xisaab xidh baa laga rabaa markaas baa waxa soo bixi doonta wixii ka soo baxay iyo sidii loo qaybsadayba qodobka miyay badaacadi korodhay intii aynu dhiibnay anu kullu xogta nimka ayaa waxa weeye halkan waxa jooga maareeyihii dekada baa jooga xagga konteenarada aad iyo aad bay u korodhay konteenarada waxay marayaan iminka ilaa 10 kumaan malinayo konteenar bishii ay marayaan iminka bishii konteenarada ka waa 40% bay koray konteenarada ayaa la yidhi marka insha Allah waxaan rajaynaynaa dad sanadkii ka soo qaaday bishii ay tahay 10,000 waa 120,000 oo konteenar sanadkii wali waa bilow inuu waxaan ku xisaabtay inuu gaarsiino mashruuc markuu dhamaado ilaa 1 milyan oo konteenar sanadkii baynu doonaynaa insha Allah assalaamu calaykum xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin